ay maqlayeen iyo hub ay ku tuurayaan waxay ku tilmaameen inay ka soo kaceen dhanka gacanka cadameed waxayna sheegeen inay arkeen meel ay hub ku duqeeyeen waxayna halkaasi ku dhintay sida ay sheegeen ilaa 3 neef oo ari ah diyaaradihii balaleed bay noqdeen way baqtiyeen markay iska baqtiyeen iyaan anaguna shakino tooshkina waan iska baqtinay dabka wuxuu korsaynay waan iska aasnay telefoonkaygana markaa waan iska xidhnay cabsi baan naga shaydi cabsi markay naga shay meel naga koonayso oo sidoo kale naga ah iyo ku riday rasaasta gib way ku baast ilaa indeer inta geedka galwa gobka noo jirta iyo ku riday dhulkiiba dabcad ka dhigtay daraar caadi ana wadi waan dhabarnaydi la badbaadina wixii aan la joogna oo kala caymado mid yaadi meel in baxsatay in kala uu kolkay naga tagtay iyadoo bilaa ilaa sabay halka ka jireso halka wixii kigi sida badda ugu nooga laam waxay tahay ma garanay waxaan weyn iyo waxaan maqlay waxaan mid ma yahay kadib markaa kadib walku waagu bariyay baan wixii doodoonay wixii aan geeli baxsaday maan intii aan helayna waan kaxayno meel biilanay subaxdii dambaan ku soo noqonay mid bakti walkii yeela iyo mid awacano madax kaga dhacday wax oo halkii fadhiya deegaanka dooxa garayood oo kamid ah meelaha diyaaradahaasi lagu arkay waxa ku nool dad ay abaaruhu ka soo barakiciyeen deegaano kala duwan kuwaasi oo sheegay in arintan ay hadda cabsi kale ku abuurtay weeyaan meesha la yiraahdo goryood dooxa goryood dooxan reer baa ag degan waa dad masaakiin ah waa dad xoolo dhaqato ah waa dadka guryahooda ay arkana intay leegiin iyo halka ay magaranaysa ay ku jiraan waa dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen waa dad aad u taag daran haddana tii waxa u raacda wax baa ku soo cusboonaaday gobolka maalin walba waxaad maqlaysaa meel bay diyaarada fadhiisatay hore waa tii u fadhiisatay halkan Bariisle buurahan dhexdooda in fara badan bay wax ku riday meelo aan dad joogin markaas imaka waxa la sheegayaa meelo kale in aan ku soconaayo inay xoolo waxyeeleysay dadkii dhibtaas haysata haddaba dadkii masaakiinta ah ee gobolka deganaa markay taasi haysato waxa la doonayaa horta diyaaradahani waxay ka soo kacaan halkan badda kuwan shalay markii la eegayay halkan badda ka soo kaceen habeen oo dhan saasay noo dul taagan yihiin oo gariirka baxaya iyo waxa badda lagu ridayo iyo guuxooda ayaa seelacna dawqiya dhib fara badan bay runtii dadku qabaan arintaasi taar baanu ka dirnay saaka taar baanu ka dirnay wasaaradda arrimaha gudaha u dirnay iyo xukuumadda bishii May 2016 waxa habeenimo ay diyaaradii hub ku tuurtay meel